aayatullah sayid cali khumeyni wuxuu ka mid ahaa dadka ugu saameynta badan siyaasadda bariga dhexe 40kii sano ee lasoo dhaafay. wuxuu soo noqday halgamaa ka dhanka ah shaahgii madaxweynihii labaad ee iiraan kadib hogaamiyihii sare ee jamhuuriyadda islaamiga muddo 37 sano ah ilaa uu ku geeriyooday duqeymihii maraykanka iyo israa'iil ee shalay ka dhacay dalkaasi. warbixintan ayaan ku eegi doonaa noloshiisii hore, doorkiisa kacaanka, xukunkiisa hogaamiyaha sare, siyaasadda gudaha iyo dibadda, iyo sida geeridiisa u bedeshay mustaqbalka iiraan. soo dhawaada. cali khumeyni wuxuu ku dhashay 19 abriil 1939 magaalada mashhad ee waqooyi bari iiraan oo ah magaalo ay barakaystaan shiicada ku taal xarunta macbadka imaam reza, taasoo ka dhigaysa meel muhiim u ah shiicada. aabihii sayid jawaad khamenei wuxuu ahaa wadaad shiico ah oo xishood badan oo noloshiisa ku bixiyey baridda fiqiga iyo tafsiirka qur-aanka. hooyadiina waxay kasoo jeeday qoys culimo ah. khamenei wuxuu waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dhexe ku qaatay mashhad, isku marna wuxuu ku biiray howlaha madaarista diimeed isagoo baranayay fiqiga usuul alfiqi, falsafada islaamka iyo akhlaaqda. intuu dhallinyarada ahaa wuxuu aada u akhrin jiray buwaagta iyo ka hadalka fikirka islaamka, suugaanta faariska iyo halgankii ka dhanka ahaa gumaysiga, taas oo ka dhigtay nin fikrad ahaan, diimeed ahaan iyo siyaasad ahaan firfircoon. 1960 khamenei wuxuu aada ugu xirmay fikradaha aayatullah ruhollah khamenei oo dhaliil xoogan u jeediyey shaah maxamed reza, gaar ahaan revolutionkii cagaarna ee lasoo dhaafay. xeerarku iyo khamenei ku tilmaamay kuwo diinta iyo madax banaanida dhaawacaya, gaar ahaan kacaankii cagaarna ee la socday xeerarka khamenei uu ku tilmaamay kuwo diin iyo madax banaanida dalka dhaawacaya. khamenei wuxuu bilaabay inuu khudbado ka jeediyo masaajidda mashhad isagoo cambaareynaya hogaankii markaasi dalka ka tirinayay joogitaanka maraykanka iyo israa'iil iyo cadaadiska muslimiinta falastiin, inuu qayb ka noqdo abaabulka urur diimeedyo iyo siyaasadeed qarsoodi ah oo kasoo horjeeday xukunka. falkaasi ayaa u horseeday inuu dhowr jeer xabsiga loo taxabo, la jirdilo oo mararka qaar la masaafuriyo. sirdoonka safaak ayaa la socday dhaqdhaqaaqiisa, hase yeeshee ma uusan joojin. khibradahaasi ayaa ka dhigay nin ku adkaysta in xornimada iyo madax banaanida iiraan lagu difaaco diinta. markii kacdoonkii shacabka ee 1978 ilaa 1979 ay xogeysteen, khamenei wuxuu door muhiima ka qaatay abaabulka mudaharaadyada mashhad iyo isxilqaanada lagu taageerayo khamenei ku sugnaa qaxootina ku ahaa Bariis. kacaankii islaamiga ahaa ee 1979 ayaa riday shaahgii wadankaasi ka talinayay. khamenei wuxuu noqday hogaamiyaha sare ee cusub. khamenei waxaa markii dambe loogu abaalguday inuu ka mid noqdo xubnihii golaha kacaanka, isla markaana uu noqdo wakiilka hogaamiyaha sare ee u qaabilsan golaha difaaca sare. sanadihii 1980 wuxuu qabtay xilal kala duwan: xildhibaan baarlamaan ah, wakiilka Tehraan, imaam salaada jimcaha ee Tehraan, taasoo siinaysay masraxa ugu weyn ee khudbadaha iyo siyaasadda diinta. mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreeya ee abaabulka ciidamada ilaalada kacaanka iyo ciidamada difaaca iiraan intii uu socday dagaalka iiraan iyo ciraaq 1980 ilaa 88. dagaalkaasi khamenei waxa uu ku dhuftay fariin diimeed iyo qarannimo aada u weyn, isagoo ku boorinayay dhalinyarada inay naftooda u horaan difaaca dalka. waxaa la sheegay inuu hal mar dhaawac fudud soo gaaray weerarkaasi kadib dilkii madaxweynaha maxamed cali rajaa ee 1981. baarlamaanka iyo golaha khubarada ayaa khamenei u doortay hogaamiyaha madaxweynaha cusub. wuxuu xilka hayay 2 jeer, waa 1981 ilaa 1985 iyo 1985 ilaa 1989. xilligaasi wuxuu wajahayay dagaalka iiraan iyo ciraaq oo guul iyo guuldarraba isugu jira, cunaqabataynta maraykanka, hoos u dhaca dhaqaale iyo arrinta iyo raritaanka malaayiin qaxooti ah. khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya muxaafidiinta diimeed iyo garabkii bidix ee islaamiyiinta. inkastoo madaxweynuhu aanu iiraan ka ahayn jagada ugu sarreysa, khamenei wuxuu ku guulaystay in uu xiriir dhow la yeesho golaha kacaanka, hay-adaha amniga iyo khamenei laftigiisa, taasoo mustaqbal ahaan ka dhigtay musharax awood u leh hogaamiyaha sare ee la filan karo. markii imaam khamenei geeriyooday 3 juun 1989, golaha khubarada kacaanka ayaa kulmay si ay u doortaan bedelkiisa. inkastoo culimo badan oo darajo fiqi oo sare leh ay jireen, haddana xaaladda siyaasadeed, kalsoonida kacaanka iyo damaca lagu ilaalinayo adkeysiga nidaamka ayaa keentay in 4 juun 1989 cali khamenei loo doorto hogaamiyaha sare ee hogaaminaya dalkaasi.
si arrintan iyo sharciga ugu ekaato dastuurka ayaa wax laga bedelay si loogu dhigo in hogaamiyaha sare uu u baahan yahay aqoon ahaan fiqi ku filan halkii hore looga rabay inuu noqdo marjaca diimeed ee heerkiisa ugu sarreeyo. tani waxay muujisay in doorashadiisu ahayd go-aan siyaasadeed oo xoog leh oo loo arkay inuu yahay qofka si fiican u yaqaan nidaamka la xiriirsan ciidamada islamarkaana awood u leh inuu mideeyo garabyada gudaha. intii uu hogaamiyaha sare ahaa Khamenei wuxuu xakameyn buuxda u yeeshay ama awood ahaan u lahaa magacaabista taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo kacaanka, magacaabidda iyo ka qaadista madaxda garsoorka, madaxa warbaahinta qaranka iyo xubno badan oo golaha ilaalinta dastuurka uu ka mid yahay. saameyn xoogan ayuu ku leeyahay doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka, iyadoo musharaxiinta lagu dhex marayo sifeyn ay sameeyaan hay-adaha uu ka taliyo. wuxuu xoojiyey doorka kacaanka ee dhaqaalaha shirkado waaweyn, mashaariic dhismo saliid iyo gaas. wuxuu door weyn ku yeeshay kor u qaadista dhaqaalaha dalkaasi. shirkado waaweyn, mashaariic dhismo saliid iyo gaas caburiyey mucaarad badan, gaar ahaan intii lagu jiray 2009 ilaa banaanbaxyadii 2019-2022, isagoo ogolaaday in la adeegsado xoog, xarig iyo xukuno culus. dhinaca dhaqaalaha xukunkiisa wuxuu la kulmay sicir barar, cunaqabatayn iyo hoos u dhac lacagta Iiraanka. taageerayaasha waxa ay ku doodaan inay tani ka dhalatay cadaadiska reer galbeedka, halka mucaaradku ay ku dhaliilaan maamul xumo iyo musuq. Khamenei wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay istiraatiijiyadda shabakada xulufaysan ee Iiraan ee gobolkaasi ay taageerto. waxa uu aad u taageeray ururada ay ka mid yihiin Xisbullah ee Lubnaan, kooxaha Shiica ee ka dagaalama Ciraaq iyo Suuriya, xuutiyiinta Yemen, xiriir dhow oo uu la yeeshay Xamaas iyo jabhado ka dagaalama gudaha Falastiin. isagoo kasoo horjeeda Mareykanka iyo Israa'iil, wuxuu Iiraan ka dhigay awoodda regionalka ah oo dagaal wakiilo ah ku gaarsiisa cadowgiisa laga bilaabo Golan Heights ilaa Badda Cas. wuxuu si joogto ah u cambaareyn jiray Israa'iil, wuxuu Mareykanka ku tilmaamay shaydaan weyn, wuxuuna dhiirigelin jiray in la taageero qadiyadda Falastiin. xilli Khamenei hogaaminayay Iiraan waxay si weyn u ballaarisay barnaamijka gantaalada iyo awoodda nukliyeerka. inkastoo uu ku adkaysanaa in hubka nukliyeerka aanu sharci ahayn islam ahaan, haddana wuxuu si cad u taageertay horumarinta uraniumka, kubcinta heer sare ah, gantaalo fogaan dheer iyo drones casri ah si cadowga lagu muujiyo in weerar kasta uu qaadi karo uu noqon karo mid ay qaadi karaan Iiraan. dhinaca kale wuxuu ogolaaday in Iiraan gasho heshiiskii nukliyeerka 2015 si loo yareeyo cunaqabataynta, balse kadib Mareykanka ayaa ka baxay 2018 ayuu amray in dib loo kordhiyo uranium kubcinta, taasoo sii xumaysay xiriirka Tehran iyo Washington. sanadkan 2026 xiisada qarsoon ee Iiraan, Israa'iil iyo Mareykanka ayaa isu bedeshay dagaal toos ah. duqeymo culus oo Israa'iil iyo Mareykanka si wadajir ah uga fuliyeen Iiraan ayaa lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan, gantaal iyo bartilmaameedyo loogu maleynayay inuu Khamenei ku sugnaa. 28 Febraayo ee sanadkan, dowladda Iiraan iyo warbaahinta caalamka ayaa xaqiijiyay in Ayatollah Ali Khamenei uu geeriyooday kadib dhaawacyo culus oo kasoo gaaray duqeyn ka dhacday meel u dhow xarun amni oo uu deganaa. telefishinka Iiraan ayaa baahiyey barnaamij baroordiiq ah, janaaso qaran iyo codsi ay dowladdu ku sheegtay hogaamiyaha shahiid ku dhintay isagoo difaacaya Jamhuuriyadda Islaamiga ah. geeridiisa ayaa isla markiiba dhalisay shir degdeg ah oo golaha khubarada ay si loo doorto bedelka cusub. cabsi ah in loolan awood iyo kala qaybsanaan gudaha ah ay qarxi karto, maadaama Khamenei uu ahaa tiirkii isku hayay nidaamka. su-aalo waaweyn oo ku saabsan mustaqbalka barnaamijka nukliyeerka, shabakadaha xulafada Iiraan iyo dagaalka ay kula jiraan Israa'iil iyo Mareykanka. dhaxalka Ayatollah Ali Khamenei waa mid laba waji leh. adkeynta Jamhuuriyadda Islaamiga ah, wuxuu hogaamiyey nidaam 37 sano ah, wuxuuna ka hortagay in la burburiyo inkastoo ay jireen cunaqabatayn, dagaallo iyo kacdoon gudaha ah. wuxuu dhisay ciidan gantaalo iyo drones ah iyo shabakado xulafo hubeysan ah oo ka dhigay Iiraan awoodda regionalka ama gobolka oo aan la iska indhatiri karin. kharashka siyaasadeed iyo bulshada ee gudaha dibadda, xukunkiisa wuxuu la xiriiray caburin siyaasadeed, xadgudub xuquuqda aadanaha, xabsi siyaasadeed iyo dilal mucaaradka ah. dhaqaalaha Iiraan wuxuu galay dhibaato dheer, sicir barar, shaqo la'aan, hoos u dhac lacagta iyo ku tiirsanaanta ballaaran golaha sare ee dalkaasi. geerida Khamenei waxa ay caalamka u tahay dhammaadka cutub aad u dheer oo ka mid ah taariikhda Iiraan laga bilaabo gacaankii 1979 ilaa 2026, waxaana la sugayaa cidda bedeli doonto iyo nidaamkii uu dhisay in uu sii waarayo ama uu noqon doono mid ay la wareegaan jiilka cusub.